nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo sheegay qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii guri u dhisa ama masaajid u dhisa in ilaahayna subxaanahu wa tacaala isaga guri jannada uga dhisayo. hortiina maanta waxaan soo istaagay oo isoo kiin hor istaajiyay inaad igala qayb qaataan qabyada ay waxa weeye uu qabyaysan yahay masaajidka hortiina ka muuqda. masaajidkaasi oo ku yaala meel baadiye ah dadkii waxa weeye ku tukanayeen loo baahnaa oo qabyo ka yahay in dib loogu dhisano u baahan. qiimaha masaajidkaasi marka hore lagu qiimeeyay waxa uu ahaa $1,900. hadda waxaan gacanta ku haynaa lacag dhan $400 meelaha ku dhawaad. lacagta dhimanna ay tahay waa $1,500. $1,500 inaad nagala qayb qaataan dhiska masaajidkaasi dib loogu dhisayo. waayo waxaynu ku jirnaa maalmihii ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamay inay yihiin maalmo khayr badan. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay inay yihiin afdalu ayaami dunya, maalmaha adduunyada maalmihii uga qiimaha badnaa. inaynu maalmaha ka faa'iidaysano oo aynu uga faa'iideyno waalidkeen innaga naftirkeenu aynu ka faa'iidaysano sadaqadaasi oo aynu masaajidkaasi dayactir iyo dib u habeyn ku samayno. $1,500 waxaa laga yaabaa telefoonkan kasoo dhex hadlaya inuu ka qaalisan yahay, waxbayna lama aha. waa inaynu awoodnaa, waynu bixin doonaa. hortiina waxaa yaala hadda idinka muuqda waxa weeye waa akoonnadii iyo meelihii loogu shubay masaajidkaasi. sidoo kale lambarraantii masaajidkaasi lagala xidhiidhayay. laga yaabaa inaanad awoodeyn bixinta lacagtaasi, balse waxaad awooddaa inaad muuqaalkaasi u sheer garayso qof walaalkaaya oo chanceskaasi ka faa'iidaysanaya. ilaahina subxaanahu wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inuu acmaasha dhammaanteed bay naga aqbalo. qof kasta oo sheer gareeyay ama wax ku darsadayna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu u weydiinanaa inuu jannada meesha ugu sarraysa uu uga dhiso.